garyaqaanada kala guuleed dafaac iyo sidoo kale Jamaal Mandela oo ka tirsan ururka qaranada Soomaaliland oo warbaahinta maanta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa waxa ay soo jeediyeen in guddi madax bannaan loo saaro arrinta ku saabsan jirdilka ay wariyahooda garaysay hooyadeeda kula kulmeen ciidamada booliiska ee Soomaaliland waxaana ay fariin u soo jeediyeen hoggaanka ciidamada booliiska iyo sidoo kale madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxaan halka maanta isugu nimay joognaa xafiiskii ururka qaranada oo inala joogo xogiyihii guud ururka qaranada arrinka la xiriira cabasho ka timi saliga qurac dheer runtii muddo ayaa qaranada Soomaaliland arrimaha indheyndeynay inuu doonayeen in xogteeda ogaadaan oo aan hore ugu digdigin ka hadalkeeda maadaama uu ogsoonahay in booliiskuna shaqo hayo dadweynaha iyo booliiskuna mararka qaar ka hor iman karaan balan ogaano in khalad dhacay in kale ayaan runtii u sugaynay intaas oo dhan markii aan runtii baarnay waxa noo soo baxday in wixii ku dhacay hooda garaysay iyo hooyadeeda u baahan tahay baaritaan madax bannaan in lagu sameeyo oo cidda ka hadli kartay go'aan ka gaari kartaa inaan ahayn booliiska laga cabanayay oo hadalka booliisku jeediyaan oo ahayn hadal qancin kara dadweynaha maadaama uu yahay ciddii laga cabanayay cidda laga cabanayay iyadu inaanay oran karin anaga baarnay oo kolka wax eedan ma lihiin marka waxaan ku soo jeedinay in la sameeyo guddi madax bannaan oo dad muxtaram reer Soomaaliland ku jiraan oo aqoon booliis iyo aqoon sharci leh oo ariga ka gungaara waxaan soo jeedinaa laba sababood oo muhiim ah marka koowaad anagu qareenaan nahay ururka qareena 100 qof waa ka tirsan haddana maanta ma garanayno meel aan u diro hooda oo ku oran karo wadada sharci baa la maraayo oo booliiska laga cawdaayo soo mar ma jirto way ogeedeen xilkii booliiska muddo 10 sano laga soo shaqeynayay qodobadii shacabka ilaalinayay ee guddida madax bannaan cabashada lagu sameeyay waa laga saaray tii waxay keentay markaa in aan sarkaalka booliiska meel looga caban karo shaqo haya booliisku dadku uu ku geefi kara sagna waa lagu geefi kara waxa muhiim ah in la helo meel ka madax bannaan booliiska loo tagi karo laakiin maanta waxa la leeyahay dad booliiska cabatay isla booliisku baad u tagaysa taasina meel adduunka kama dhacdo qofkii dibta laga sheeganayay in isaga la yiraahdo ayaa gartan qaadi kara oo waxna ku xukumi kara waxna ka xukumi kara taas baa keenaysa kolka in dadku warbaahinta soo istaagaan oo ka qayliyaan marka saddex mas'alo waaweyn baan soo jeedinay marka koowaad arrinka hooda garaysay hooyadeeda in guddi madax bannaan loo saaro arrinka ka gungaara waa koow laba in dib u habeyn booliiska lagu sameeyo saliya baara oo saddex mas'alo waaweyn wax laga bedelo waa in laga bedelo qaabka booliiska loo shaqaalaysiiyo si dadka booliiska loo qorayaa inuu noqdaan dad ixtiraamka iyo akhlaaqda iyo dadnimada yaqaan dadka ixtiraama laba in la sameeyo meel booliiska laga caban karo oo ka madax bannaan booliiska oo dadweynaha booliiska wax ka tirsanaya u tagi karaan kolka hadii dadweynahaas waxay sheeganayaan sax yihiinna ay qaato hadii laga gardariyay booliiskana yiraahdo waa laga gardariyay laga tago ta saddexaadna waxa weeye booliisku lagu soo celiyo maxkamadaha madaniga oo maxkamadaha militariga laga daayo waayo hadii maxkamadaha militariga loo daayo waxay noqonaysaa booliisku inuu shaqeeyo sidii militariga booliiskuna military ma aha dad ay la macaamilaya runtii waxa aad iyo aad looga xumaado in qof adeeg booliiska u soo doontay saldhigyada booliisku inay fahmaan inay adeeg bixiyaal yihiin oo aanay cusbitaalka waxba ka duwaneyn qofka bini'aadamka reer Soomaaliland cadaalad buu ka soo doonanaya adeeg amni qofkii ka soo doonanaya adeeg amni in lagu qabsado oo rabshadi ka dhacdo gaariga meesha dhigatay baa khaldanayd ma ahayn booliiska shaqadooda ay tahay in dadka gawaaridu halka dhiganayaan in meel u diyaariyaan iyaga tay dadka u yimaada biyaha cabaan iyo meel ay fadhiistaan oo nadiif oo wanaagsan inay helaan inay isu qaataan oo isu fahmaan in adeeg bixiyaal yihiin jeelal dadku ku xirxiran yihiin oo dhib leh inaanay arag booliiska anagu hadda qareenada dad xuquuqsanka muddo dheer baan ku ololinay waa ogeedin hadda muddo ku dhow 2 sano waan ka aamusnay sababtu maxay tahay waxaanu u qaadanay maadaama hoggaan cusub yihiin fursad la siiyo wax ku bedeli karo oo aan markaaba maagtay lagu qayqaylin laakiin cabashooyinkeenu haynin la soo gaaray waxba iska ma bedelin kuwii horaan haynin wada garays kaligeedna maaha iyadoo qof saxaafadda taqaano hadli kartaa hayde dadaan hadli karin cabashadooduna soo gaadhaana oo badanina way jiraan marka waxaan ka codsanaynaa hoggaanka booliiska iyo madaxtooyada oo shaqadeeda koobaad tahay in institution-kan isbedel lagu sameeyo isbedelka marka lagu sameeyo anagu dad hal leeriyo dad hala baxsado ma lihin institution hay'ad ahaan weyn wax laga bedelaa oo ay noqotaa hay'ad madani oo booliiska adduunka u eg xitaa say u sameysantay qaab dhismeedku waa qaab dhismeedkii Maxamed Siyaad Barre 1970 kii sameeyay booliiskana sidoo ahaan jiray 1960kii ilaa 1960kii uu maanta yahay waa kala jaad hadda xitaa wadamada inagu dhow Kenya iyo Uganda eegtiisku si uma sameysmo marka anigu hadalka soo koobaya xogayaa guud uga baxaya waxaan doonayaa inaan ka codsano dadka ay arrimahan khuseeyo in ka baaritaan madax bannaan lagu sameeyo in booliiska dib u habeyn lagu sameeyo iyo in aan marka qof bini'aadan iyo hay'ad dawladeed ka cawdo aan markiiba qofka la sariiran oo la oran adaan ku xidhaynaay la fahmo in la idinka caban karo wax la idinka sheegi karo la idin dhaliili karo la idinku mudaharaadi waxaanu halkan maanta idinku yeedhnay inaanu ka hadalno halkan oo ah xafiiskii ururka qaranada Soomaaliland ee Soola inaanu ka hadalno dhacdadii hooda garays iyo hooyadeed Suleekha runtii dhacdadaasi muddo aanu ka aamusnayn ururka qaranadu ka aamusnaayeen wax kale looga maanaan aamusnayn waxa aanu jaalis marka hore siinaynay madaxda booliiska iyo qaabkay uga hadasheen sugaynay waxa kale oo anigu aanu ku hawlanayn ururka qaranadu waa garsoorayaal oo kale inaanu marka hore dhacdada si qoto dheer u soo baadhno habeen saddexaadkii hooda garays gurigaan ku booqanay hooyadeed runtii sawirro marka laga yimaado
kuwa wejigeeda ku yaala waxa iyaguna ka culus oo qof kasta ka naxaya nabarrada yeelada hooyadeed ku yaala waxa kale oo iyaguna laga naxaya oo qof kasta oo arka oo halkan cadeynteeda aan ku haynaa nabarrada qarsoon ee jirka kaga yaala hooyadeed waa qof waayeela gacanta kor uma qaadi karto arrintaasi jaaniska aanu booliska siinay waxa uu noqday dhacdadii ay dhammaantiin wada taagniideen ee booliskiina iyagu isu garnaqaan inoona soo jawaabaan weliba inoogu daraan inay inoo hanjabaan waxaanu leenahay ka urur qareen ahaan dhacdadaasi sidee u dhacday aad iyo aad baan uga xunnahay waanaanu cambaaraynaynaa boolisku waa booliskeenii waxayse tahay inay boolisku fahmaan shaqaday hayaan inay cidda u hayaan ay tahay muwaadiniinta shaqada laga rabaana ay tahay inay noqoto shaqo hufan ma aha in la yiraahdo dhaxantii habeenkii noo taagiin wax lagama sheegi karo xaasha aniguba qofkii shacabka ahaa ee cashuur bixiye ahaa ay ku jireen baan ahay waxay markaa tahay in dhacdadaasi boolisku falkaasi maanta loo dhacay in cid allaale cidii ka dambeysay waxaanu ka urur ahaan ku baaqaynaa in cid allaale cidii ka dambeysay mas'uuliyadeeda lagu qaado oo cadaaladda la horgeeyo marka intaasi laga yimaado anagu qareen ahaan maalin walba waan la macaamilaynaa booliskii maalin walba maxkamadii baan isku imanaa shacabka Soomaaliland waa ka marag waxa caado noqotay askariga booliska haddii qof shacab isku dhacaan inta booliska wada dhinac taagan inay mar gacanta wada saaraan ma garanay sharcigaasi meel ay ka keeneen waa sharci darro aad u weyn qofka shacaba laba qof oo shacab ayaan sharcigu ogoleen bayna cid isku tagaan cali qamacaroon cable TV hargeysa